Washington waxay miiska soo saartay dhammaan xulashooyinka kala duwan ee lagu wajahayo gobolka Bariga Dhexe. Gudaha Iran oo la weeraray waa ikhtiyaar muddo dheer ay tixgelinayeen dalkaasi sida wararku ay tilmaamayaan. Wasiirka wasaaradda dagaalka ee Mareykanka Pete Hegseth waxa uu ku dhawaaqay arrin cusub oo ku saabsan gudaha wadanka Iran iyo xaaladda oo aad looga baqayo. Saraakiil Mareykan ayaa ku dhawaaqay dhammaan gantaalihii ee diyaaradaha dagaalka Iran waa la qabtay. Ma si jiraan bay yiraahdeen qasaare ka dhashay weerarkii ugu dambeeyay ee saaka Iran ay ku qaaday saldhigyada Bahrain iyo wadanka Kuwait. Xagee wax marayaan gobolka Bariga Dhexe maxaa ka taagan? Dhaqdhaqaaqa iminka waa sidee? Maxaa sacaawa la filan karaa? Warbixino gaar ah ayaan ku eegayaa caawa khiyaartayna la socota ayaan ku la fagurayaa. Halkani waa channelka Cabdicasiis Barrow barnaamijkana waa Barrow Show faaqidaada caalamka iyo taxliilka diblomaasiyadda. ma ogtahay in dhakhtar Shaafici Aadan Dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar aan ku horeeyay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay in uu yahay bartilmaameed ku wajahan gudaha wadanka Iran isla markaana ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay daba socdaan. Tan ayaa waxa uu ku sheegay in ay doonayaan inay kaga aarsadaan dilkii loo geystay hogaamiyaha sare ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei oo hadda lagu guda jiro aaskiisa isla markaana maalmihii ugu dambeeyay ee sagootintiisa lagu guda jiro. hadalkani waxa uu ku soo aadayaa xilli xiisada gobolka Bariga Dhexe ay aad cirka isku shareereysay isla markaana ay dib u soo cusboonaadeen weerarkii labada dhinac u dhaxeeyay. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay suuragal tahay in Iran ay isku daydo dilkiisa isagoo ku dooday inuu yahay bartilmaameedka koowaad ee Tehran xilli xiisada u dhaxaysa labada dal ay wali taagan tahay. Trump ayaa sheegay in howlgalka militariga Mareykanka uu ka fuliyo Iran ay ahaayeen kuwa si buuxda u guuleystay isagoo ku antacooday in ciidamada Iran ay si weyn loo wiiqay oo wali la daba socdo. waxaan burburinay awoodda ciidamada Iran waxaan quusinay 59 doonyo iyo maraakiib isugu jira ayuu yiri Trump isagoo intaasi ku daray in tillaabooyinka Mareykanka ay qaadanayeen kuwa ay ahayd in la qaado tan iyo 47 sanadood ka hor sida uu Trump hadalkiisa u sheegay. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa sidoo kale ku eedeeyay Iran in ay marka hore dooreysay heshiis balse markii dambe weerar ay ku qaaday maraakiibta isagoo sheegay in ay sababto Washington inay qaato tallaabooyin adag. Trump waxa uu sidoo kale ku celiyay mowqifka Mareykanka ee ah in aan marnaba la aqbali doonin in Iran ay hesho hubka nuclear-ka ma aqbali doona ayuu yiri in dad aan mas'uul ahayn ay helaan hub nuclear ah sida uu yiri isagoo xusay in hoggaanka safka koowaad iyo kan labaad ee Iran ay meesha ka baxeen isla markaana ay hadda talada hayaan hogaamiyaal uu ku tilmaamay heerkii saddexaad oo aan khibrad iyo waliba saameyn badan oo siyaasadeed iyo bisayl uusan ka muuqan gudaha wadanka Iran marka la joogo. Trump ayaa sheegay in uusan doonayn in uu sii wado isjiijid siyaasadeed ee hoggaanka hadda jira ee Iran balse uu doonayo in gabi ahaanba la soo afjaro arrinta wadanka Iran oo dowladda Mareykanku ay qaadanayso mowqif adag. dhanka dhaqaalaha Trump waxa uu sheegay in qiimaha shidaalka uu sare u kacay wax yar kadib dhacdooyinkii ugu dambeeyay balse uu filayo in arrintaasi ay hoos u dhacaan oo ay meesha ka baxaan buu yiri marka aan Iran shaqo aad u ballaaran ka qabanno. ciidamada dalka Iran ayaa ku dhawaaqay 8 askari in looga dilay weerarkii ugu dambeeyay ee xalay ciidamada Mareykanka ay ku qaadeen magaalooyinka iyo jasiiradaha teedsan koonfurta wadankaasi isla markaana kaabiga ku haya marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz ee hadda lagu dagaalamayo. ciidamada ayaa ku dhintay inta badan halka loo yaqaan Bandar Abbas oo ah goob istiraatiiji ah oo dekad weyn ay ku taalo isla markaana uu ka meegaaran yahay saldhigga ugu ballaaran ee ciidamada badda ee dalka Iran ay degan yihiin halkaas oo xalay ka mid noqotay goobihii weerarka lagu qaaday. telefishinka dowladda Iran ee rasmiga ayaa sheegay in ugu yaraan 8 askari oo ka tirsanaa ciidamada cirka iyo kuwa badda ee Iran ay ku dhinteen weerar lagu qaaday magaalada Bandar Abbas iyo Bushehr aroornimadii maanta oo ciidamada Mareykanku ay halkaasi weerar ku qaadeen. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in askartaasi ay ku geeriyoodeen gantaalo cadow oo ku dhacay baa la yiri goobo ay ku sugnaayeen
iyadoo weeraradaasi lagu eedeeyo Mareykanka sida ay sheegeen dowladda Iran. weerarada waxa ay qayb ka yihiin duqeymo cusub oo lagu bartilmaameedsaday koonfurta wadanka. wararka hordhaca ayaa tilmaamaya in dadka dhintay ay ka tirsanaayeen ciidamada cirka iyo waliba ciidamada badda ee Iran, inkastoo aan wali si rasmi ah loo sheegin magacyadooda. faahfaahin dheeraadana aan laga bixin goobaha saxda ah ee lagu beegsaday iyo waliba darajooyinka ciidamadaasi ay lahaayeen. dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo xiisada military ee u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ay mar kale sii xoogaysanayso kadib weerar celin isdaba jooga oo maalinta ka dambaysa ka dhacaya gobolka Bariga Dhexe oo xiisadu ay sii xoogaabayso marka la fiiriyo dhinacyadan isbaacsanaya halka ay gaarsiisan tahay. taliska Bariga Dhexe ka howlgala ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM lagu magacaabo ayaa caawa soo saaray warbixin ay ku tilmaamayaan in marinkaasi istiraatiijiga ah ay gaaf meerayaan ilaa iyo 20 kamid ah maraakiibta dagaalka ee gaashaaman ee Mareykanka oo ay doonayaan baaliyay inay kaga hortagaan weerar kasta oo argagax gelina oo lagu hayo maraakiibta halkaasi isticmaalaysa, tan oo ka dhigan duulaan toosa oo lagu hayo danaha qaranka iyo waliba kuwa istiraatiijiyadeed ee dowladda Iran sida Tehran ay hadalkan u fasirayso. taliska dhexe ee ciidamada Mareykanka ee CENTCOM ayaa sheegay in ka badan 20 markab oo dagaal oo Mareykan ah inay haatan roondooyin iyo gaafmeer ka hayaan amni gobolka Bariga Dhexe, gaar ahaan marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz. sida uu taliska sheegay, maraakiibta dagaalka ayaa loo daadgureeyay si ay u xoojiyaan amniga gobolka una ilaaliyaan maraakiibta ganacsiga iyo kuwa militariga ah, isla markaana ay uga jawaabaan khatar kasta oo amni oo ka dhalan karaysa xiisadahan sii kordhaya ee gobolka ka jira. war-saxaafadeedka CENTCOM laguma sheegin goobaha saxda ah ee maraakiibtu ay ku sugan yihiin ama ay howlgallada ka wadaan hadda. hase yeeshee tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ay sii xoogaysanayso, isla markaana ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ballaaran oo wali ka taagan gobolka Bariga Dhexe. joogitaanka maraakiibtan ayaa muujinaya in Mareykanka uu sii xoojinayo awoodiisa ku saabsan dagaalka iyo waliba in guud ahaanba xiisada ay u muuqato inay haatan ka sii darayso. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku baanay in ciidamadiisu ay burburiyeen awoodii wadanka Iran marka la fiiriyo dhaqdhaqaaqyada hadda ka soconaya, iyadoo taliska CENTCOM-na ay bilaabayaan kor u qaadista weerarada iyo waliba jawaabaha ay siin karaan dowladda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu sii wadayo waxa uu ku tilmaamay dhaqan aan la aqbali karin in la soo afjaro, isagoo mar kale ku celiyay in Tehran aan loo ogolaan doonin yeelashada hubka nuclear-ka ee khatar gelinaya dowladaha waaweyn.